Alexander-Arnold oo markii ugu horeysay ka hadlay waxa ku qasbay inuu Liverpool ka tago. Trent Alexander-Arnold ayaa ka hadlay bixitaankiisa dareenka leh ee Liverpool, isagoo muujiyay sida uu ugu mahadcelinayo kooxda uu 20 sano u ciyaarayay. Weligii waxaan u mahadcelin doonaa Liverpool, waxayna mar walba taa igu ahaan doontaa deen, ayuu yiri isagoo ka sheekeynaya waqtigiisa Anfield. Trent wuxuu qirtay in ka tagista Liverpool ay ahayd go'aan adag, balse uu dareemay in waqtigu sax yahay si uu u bilaabo caqabad cusub. Daafaca midig ee reer England ayaa xusay inuu ku raaxaystay waqtigiisii Liverpool, isla markaana uu jeclaa daqiiqad walba oo kooxda u ciyaaray. Intii uu joogay kooxda, Trent wuxuu ka mid noqday daafacyada midig ee ugu fiican caalamka, wuxuuna ku guuleystay koobab badan isagoo noqday halyey Liverpool ah. Si kastaba, wuxuu sheegay inuu hadda yahay nin qaangaaray oo khibrad leh, isla markaana diyaar u ah inuu guulo gaaro mar kale. Go'aankiisa inuu ka tago Liverpool waxaa kaliya oo sababay rabitaankiisa dheer ee uu u qabo Real Madrid. Waan ogaa muddo dheer in haddii aan Liverpool ka tagayo, kooxda kaliya ee aan aadi lahaa ay tahay Real Madrid. Koox kale ma jirin, ayuu yiri Trent, isagoo muujiyay sida ay uga go'need inuu Liverpool dhiiga u shubo. Tallaabadan ayaa calaamad u ah cutub cusub oo u bilaabmaya xirfadiisa, waxaana uu Trent rajo weyn ka qabaa inuu saameyn weyn ku yeesho kooxda Real Madrid. Dhinaca kalena, Liverpool waxay doonaysaa inay lacag waali ah ku soo qaadato Isaac kadib saxiixa Watts. Kooxda Liverpool ayaa si rasmi ah u bartilmaameedsanaysa weeraryahanka Newcastle United Alexander Isaac, iyagoo doonaya inay xoojiyaan weerarkooda xil ciyaareedka soo socda. Tababaraha cusub ee kooxda Arne Slot ayaa doonaya inuu keeno weeraryahan heer caalami ah oo ka garab ciyaara xidigaha kale ee Anfield si ay u difaacaan horyaalka Premier League ay ku guuleysteen xil ciyaareedkiisii ugu horeeyay. Liverpool ayaa durba dhamaystirtay heshiis weyn oo 150 milyan ah oo ay kula soo wareegeen xidiga Bayer Leverkusen Florian Wirtz, waxaana hadda diiradda la saarayaa saxiixa Isaac oo ka mid noqday weeraryahanada ugu qiimaha badan Yurub kadib xil ciyaareed cajiib ah oo uu la qaatay Newcastle, kuna hogaamiyey inay ku guuleystaan Carabao Cup iyo inay helaan booska Champions League. Ayaa lagu qiyaasayaa inuu kooxda ugu kaco ugu yaraan 100 milyan oo pound. Liverpool ayaa si dhab ah u tixgelinaysa suurtagalnimada ay kaga soo qaadan karaan Isaac kooxda Eddie Howe si uu u xoojiyo safkooda weerar ee xil ciyaareedka 2025-2026. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii bandhigga ciyaaraha oo aan idinkugu waramayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo suuqa kala iibsiga. Haddii la dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.